sida la socoteenba maalmihii ugu dambeeyay wadanka South Africa waxaa ka taagnaa xiisado aad u kulul oo looga soo horjeeda dadka soo galootiga dhinacyo kala duwan oo siyaasadda wadankaasi la xiriira ayaa la sheegayaa inay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqa ajnabi nacaybka ah ee laga soo sheegayo meelo kala duwan ee wadankaasi ay ka taagan yihiin arrintan inta badan waxay salka ku haysay markii xisbiga talada haya ee ANC oo inta badan lumiyo kuraastii ee uu doonaya in uu keligii dowlad ku noqon karo hasaate uu ku qasbanaaday in uu xisbi kale uu bahwadaag la noqdo si dowladda madaxweyne Zuma ay u shaqeyso hasaate arrimaha hadda taagan oo dhan waxa ay sidoo kale wararka qaar tilmaamayaan inay ku xiran yihiin siyaasadda dibadda ka imaanaya maadaama wadanka South Africa oo maxkamadda ka geeya kiis adduunka nidaamka Israel kadib weeraradii ka dhacay gobolka bariga dhexe gaar ahaan magaalada Gaza oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa xasuuqa laba wadan oo dacwadaasi geysa maxkamadda ayaa rabshadaha ajnabi nacaybka ay si weyn uga bilaabmeen waxaana ka mid ah dalka Ireland iyo waliba wadanka South Africa maalmihii ugu dambeeyay dad fara badan oo Soomaali ah iyo kuwa kale oo ka soo jeeda wadamo kala duwan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa dareemaya dhibaatooyin adag qaarkood waa la xiray kuwana wadanka ayaa laga musaafiriyay iyadoo sheekadu ay tahay wali faanoole fari kama qodna doodan dadka qaar waxay ku eedeynayaan madaxweynihii hore ee wadankaasi Jacob Zuma oo ka soo horjeeda madaxweynaha hadda talada haya arrimahan ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijka caawa ee faaqidaada wararka caalamka iyo taxliilka diblomaasiyadda waxa igala qayb galaya aqoonyahanka Cabdiraxmaan Caanamac oo horay uga tirsanaa xubnaha ugu firfircoon jaaliyadda laakiin hadda aqoonyahan si weyn u lafagura arrimaha South Africa isla markaana wadankaasi ka shaqeysta isagoo Cape Town jooga ayuu qadka si toos ah uga jira Cabdiraxmaan sharaf ayay noo tahay marka ugu horeysa inaad qayb ka tahay caawa barnaamijka Barrow Show bal South Africa iyo wararkii ugu dambeeyay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد العزيز آدي أما سنتهي وأنا كله هي عبد العزيز شو أما برو شو رنا هانتي سيدا عاد هرناها أقول شيء كتير بصوت أفريقيا مالمي لصودا في واحد قلقلي ربشده هاسو كو جهان دتك أجانب أما سو قلوتي قا إيجو مركا أي إذا عادها لها الله ينبضنا دهي واحد نكو جهان هاي دتك سو قلوتي كشرع الدردا laakiin actionkooda uu ka duwanaa oo aysan kala saaraynin kuwa sharciga wadanka ku jooga iyo kuwa sharciga aanan ku joogin intaba run ahaantii arrimahaas rabshadaha ah ee South Africa waxay dabada ku hayaan saa sheegtay waa siyaasadda South Africa ee dhexdhexaadka ahayday siyaasadda South Africa ee dhexdhexaadka ahayday marka ay timaado arrimaha caalamka ah ayaa dhexdhexaadnimadii ku ekaan weyday oo dhinac u janjeersatay laana South Africa marka ay timaado dadka la dulminayo ama macnaha la cadaadinayo waxa ay siyaasad ahaan ay wajahan tahay ama ay qaadatayba mar hore inay caawiso sida ayagaba markii ay dhibanaayeen oo la gumaysanayay umadu ay u garab istaagtay ayay South Africa markay madax banaanida qaadatay waxay politicalkeeda ama istaraatiijiyadeeda ka dhigtay dhammaan cid walba oo dhibaatada ayada ku dhacday amal ay ku dhacday inay favorable u noqoto garab istaagto oo ay meesha ay la gaari karto la gaarto taas sababtay marka South Africa in ay markii Israel ay ku kacday genocide-ka ay South Africa wado Israel oo ay geyso maxkamadda Hague oo ay ka furto dacwad ka dhan ah South Africa maadaama ay dacwad ka dhan ah Israel maadaama Israel markaas ay xasuuqaysay shacabka Palestine taas marka ayaa waxay keentay backlash badan waxay wadamada galbeedka ah oo ay hogaaminayaan Mareykanka iyo Jarmalka iyo Israel oo aan ka marnayn oo inta kule ganacsadayaal badan oo milyaneer ah oo Israa'iilna ay inta joogaan ayaa waxa hoosta laga xariiqay in South Africa aysan helin kalsoonida dadka especially waxa xoog la saaray in xisbiga weyna ee ANC-da ahaa oo dadka madoow oo dhan ay ku mideysnaayeen sababna u noqon jiray
dadka midaysan dartood inay helaan boqolkiiba in ka badan konton si ay waddanka dowladda ayaga majority ah ay uga hogaamiyaan ayaa ayaga la taargetgareeyey waxaa laga soo dhex saaray ilaa iyo intaas oo xisbi oo ANC laga fiiqay si ANC codkeeda hoos loogu dhigo looguna qasbo dowlad coalition ah wayna dhacday ANC waxaa laga jaray markii ugu horeysay wax la yiraahdo EFF waxaa ka horeeyay niman la yiraahdo magacoodu waa iga maqan yahay wasiirka hore difaaca uu samaystay waagii Thabo Mbeki waxaana kaas u dhashay markii Thabo Mbeki baxay kadib EFF yaa baxday waxa haddana la abuuray Action SA niman la yiraahdo oo Israel si toos ah ay u maalgeliyaan waxa la abuuray Patriotic Alliance kuwa la yiraahdo aakhirkii waxa la abuuray Mkondo Zizou oo Zuma dhinaciisa ah gebigoodba marka meel kale kama keenayaan doorashada codadka ay qaadanayaan waxay ka qaadanayaan ANC codadkeedii saas ayaa marka dhacday ANC inay kalka hadda ugu dambeeyay madaxweyne Cyril Ramaphosa uu ku qasbanaaday inuu coalition yeesho coalitionkii marka waxay noqotay laba mid inuu doorto inuu aado Mkondo Zizou oo ah Zuma oo ay xifaaltamayeen oo dhibaato kala dhaxaysay oo Zumana maxkamad ay ku socotay iyo inuu aado EFF oo ayadana markaasi nimanka Westernka ay u arkayeen inay tahay xaq jir aad ah oo dhinaca xagga midigta jira marka wuxuu marka doortay qoladii cadaanka ahayd oo mar walba la rabay in lagu soo daro dowladda oo ahayd DA hadda xasuusatana DA ninka ugu horeeyo aasaasay wuxuu ahaa nin la yiraahdo Tony Leon oo ah nin Israa'iil ah isla mar ahaantaana Israa'iilnimadiisa heerka ay gaarsiisan tahay asagoo South African ah baxay oo Tel Aviv ka soo guursaday naagtiisa marka arrimahaas oo dhan isu beersaday South Africa grievances ayaga dhexdooda ka jiray dadka madowga ah iyo politicianska oo greed ah Zuma oo ka xanaaqay in laga wacay meeshii Julius Malema oo ka xanaaqay in ANC laga buriyay Action SA oo ayada dhan ahayd mashruuc oo wato nin la yiraahdo Marshall oo Israa'iil oo inta ganacsada ka ah waxyaabahaas oo dhan marka la soo keenay ANC marka waxaa la helay meel dulduleelo badan oo laga galo ayadaana sababtay in dhibaatada haddeertan lagu hayo waddankan ay qayb ka noqoto oo lagu gilgilayo siyaasadda waddankan lagana dhigi rabo inuu yahay mid ungovernable ah aakhirkana la rabo in lagu qasbo in uu ka leexdo jidka dhexdhexaadka ah ama jidka la yiraahdo west macnaha southern countries ama southka oo u janjeersado siyaasadda dhinaca westernka aad baan ku fahmay runtii si fiican oo cilmiyana waad u taxliilisay waxaan rabaa Cabdiraxmaan oo markaan isla eegna hadda xaaladda meesha ay taagan tahay madaxweynaha talada haya Ramaphosa waxa uu la kulmay xubno kamid ah dadkii dibadbaxyada abaabulayay waliba qaarkood waa u ogolaadaba dibadbaxyada inay sameeyaan bal arintan dadkan soo galootiga ah ee Afrikaanka ah maxaa iyaga ka dhigay miskiin ayaa miska la fuulo leh miyaanay dadka kale ee South Africa hayn siyaasadooda waxay ku iibiyaan run ahaantii arrinkan marka aad fiirido wuxuu ka yimaaday 30 sano oo ah failure siyaasiyiinta dadkan madowga ah ee ANC-da ay ugu horeyso waxaa 30 sano laga sugayay dadkan inay u sameeyaan shaqo abuur badan inay u sameeyaan waddanka horumar inay gaarsiiyaan jidadkii waagii hore ay dhiseen nimanka la yiraahdo apartheidki ama dadka waddanka gumaysanayay inay dib u habeeyaan infrastructure-ka dib u habeeyaan waxaasoo dhan ma aysan dhicin run ahaantii niyona cabdicasiisow si haddaa fiiridana dadka madowga ah ee waddankan way xoroobeen laakiin waxay ka xoroobeen siyaasad ahaan markii waddanka xoroobay dadka madowga ah waxay isku dayeen in siyaasadda dhinaceeda ay ku kali noqdaan oo ay ka xoroobaan dadkii hore ayaga u gumaysi jiray laakiin dadkii hore u gumaysi jira ayagana waxay isku dayeen in ay dhaqaalaha ayagu ay gacanta ku hayaan marka la rabo in shaqo la abuuro sektarada ugu muhiimsan oo shaqada waddanka laga abuuro waxa gacanta ku hayo cadaan waxaana ayaga ayaana ugu talagalay inay marginalize gareeyaan oo horumar aysan madowga ku gaarin dhinacaas
haddaa fiirido farming sectorka ama agricultureka weli caddaana gacanta ku haya beeraha nimanka la yiraahdo ii sheeg constructionka ama dhismaha iyo qalabka dhismaha labadabana waxaa gacanta ku haya caddaan oo maanta contractiga dowladda ay bixinaysa xataa caddaan ay siisaa guryaha caddaana dhiso waana meelaha shaqooyinka ugu badan dadka looga abuuro banking sectorka ama qaybta lacagaha ama bangiyadana caddaana gacanta ku haya transportationka kasoo bilow diyaarad ilaa e-hailka ku gaarsii hooseeya waxaa gacanta ku haya caddaan goobihii shaqada laga abuuri lahaayoo dhan marka caddaanka gacanta ku haya waana ugu talagaleen in goobahaas aysan gacantooda ka bixin si ay dowladda u maamulaan aakhirka wayna sugayeen waqtigan oo kale inuu yimaado si ay dowladda ugu qasbaan inaysan madow keliya dowlad noqon karin oo caddaanka lagu soo daro hadda waxaa la rabaa cabdicasiis barrow in dowladda ku xigta ANC waxaa la rabaa in 30 iyo ka hoos la gaarsiiyo oo xisbiga ugu badan codadka badan uu noqdo xisbiga caddaanka ahaa xisbiga ugu codadka badan xisbiga caddaanka wuxuu ku noqonayaa ANC ayaa hadda waxaa laga sii jiroyaa ilaa iyo 5 xisbi oo kale dad ANC ka tirsanaabaa ka baxay kalarkii qabiil walba oo madow ahaa waxa la isku dayayo in loo sameeyo xisbi gooni ah oo qabiilkiisa ah xisbiga gooniga ah marka codadka uu la imaanayo waa 2 baarlamaan ama 3 baarlamaan iyo qabiilkiisa ayuu ka soo jaray ANC dio ka soo jaray ANC marka 30 ka hoos la gaarsiiyo marka waxaa dhacaysa inay DA 33 la timaado ay noqoto xisbiga majority oo wadanka ah ayadana ay tiraahdo marka aniga raadsanaya cidda aan la sameynayo coalitionka markaas maxaa dhacaysa kuwa yaryar mid 3 heesta iyo mid 5 heesta oo aan hadalba diyaar u ahayn oo raba bas leh inuu baarlamaanka galo dowladana uu wax uun ka noqdo laakiin aanan rabin inuu itihaadka ay u socto siyaasadda u jiheeyo aanan rabin ay rabaa inay coalition ka dhigaan kadibna wadanka siyaasadiisii tii dibadda iyo tii gudahaba loo hago sida ay rabaan Israa'iil iyo Mareykanka dood waxaa jirta iyana aad u kululayd oo maalmihii ugu dambeysay qaar ka mid ah warbaahinta South Africa ay si weyn u lafagurayeen waa tusaale oo kale madaxweyne Jacob Zuma oo ka soo jeeda gobolka la yiraahdo KwaZulu-Natal ama suluuga uu ku badan yahay daban xarunta u tahay gobollo kala badan oo fara badanna dego 9 gobol oo wadanka South Africa wuxuu isku arkayaa baa la leeyahay ninka hadda talada haya Ramaphosa inuu ka soo jeedo qowmiyadda aan tabar badan lahayn marka la fiiriyo shacabka wadanka South Africa madowga ah sidaa daraadeedna uu rabo xukunka inuu isaga ka tuurto doodaas ee dadka qaar keenayaan ma ka dhex muuqataa siyaasadda South Africa run ahaantii hadda waa maalmahan waa la socday in Zuma uu tagay niman waxa jira la yiraahdo Gupta family waxa lagu eedeeyay wax la yiraahdo state capture inay wasiiradu ayaga magacaabi jireen markii uu Zuma joogo madaxweynaha ahaa niman waxay ahaayeen ganacsato ah oo Hindi ah oo wadankan yimiday oo maal gashtay isla mar ahaantaana capture gareeyay dowladii falgalay oo dhaxgalay waxa la commissioner loo saaray markii Zuma meesha laga soo wareejiyay kadib commissionki waxay soo sheegeen oo wasiiradii la wareesto qaar ay leeyihiin qofkii raba in wasiir la wuxuu u tagi jiray Gupta family marka cidda ay ridaan waa ridneeday cidda ay magacaabaan waa magacawneeday waa dad heerkaas ka gaaray siyaasadda dhexdeeda wadanka inta filtrid gareeyeen dadka noocaas ah Zuma wili kale ma aysan harin marka ay baxeen dacwa lagu soo oogay South Africa ilaa hadda waxay raadinaysaa extradition warrant u jaran in lagu soo wareejiyo South Africa oo inta ay ka istaagaan dacwadda loo haysto ay inta ka galaan musuqa ah Dubai joogeen Dubai South Africa waxay u gudbisatay ay kala saxiixdeen inay isweydaarsadaan dadka dambiilayaasha ah Dubai markii ay saxiixda haddana xaggii u wareegeen Dubai ma aqaana wili waxba isdiidan lama keenin nimanka ayaga ahaa ayuu hadeertan ninka la yiraahdo Zuma wuxuu ku booqday Hindiya markuu booqday marka nimanka uu ku booqday Hindiya waxa uu yiri waxa la idinka galana qalad ay ahayday waxa la idin daba joogana qalad ay ahayd anigana qalad la iga rido meesha wadankiina meeshii la rabay laguma wado waxaad moodaa marka wili in ay rabaan Zuma inuu ku soo noqdo xukunka si ay wadankii dib ugu soo noqdaan ayaga oo hawshoodii meesha ay uga sii wataan Zuma waxa uu sheegay inay ugu waceen inuu soo booqdo man of God nin la yiraahdo oo u soo xiri doona xirsiga uu madaxweynaha ku noqon lahaa marka somehow
zuma wuxuu u tegey hindiya inay u fiiriyaan